ugu horeyn halkan waxaan isugu nimi ismo iyo cuqaal iyo siyaasiyiin isugu jira xildhibaano hore iyo aqoon-yahano kaleba. halkan waxaan rabnaa maanta insha Allah tacaala inaanu kaga hadlo laba qodob oo aad u muhiim ah. qodobka koowaad waa in halkan insha Allah Muqdisho lagu qaban doono shir socon doona 2 maalmood oo ka bilaabmaya 30 bisha 8 iyo 31. qodobka labaadna waxa weeye halkii ay maraysay xaaladii ama raadintii la raadinayay kursigii aqalka sare ee beesha reer Maakhir kaga maqnaa dhinaca gobolada waqooyi oo inoo faahfaahin doonto insha Allah tacaala xildhibaanad Caasha Axmed Cabdalle oo ah siyaasiyiinta ugu roog cadaasan gobolada Maakhir ama gobolada Soomaaliya guud ahaanba. halkan waxaanu doonaynaa inaanu kaga hadlo labada qodob. qodobka shirka guud ay isugu iman doonaan dhammaan siyaasiyiinta, aqoon-yahanka, ismada, cuqaasha iyo dhalinyarada, haweenka reer Maakhir dal iyo dibad wixii jooga iyo wixii awoodi karaya ee iman karaya magaalada Muqdisho inaanu lagu qaban doono shir weyn la isugu iman doono lagaga tashan doono aayaha gobolada Maakhir iyo siyaasadda isbedelaysa ee hadda ka socota Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ka soo qaybgalayaasha shirka, siyaasiyiinta, garaadada iyo caaqilada iyo waxgaradka aqoon-yahanka halka isugu yimi. shirkani wuxuu ka turjumayaa shirar hore oo beeshu soo qabsatay midooyinkii kuwaasoo looga wada hadlayay masiirka ummadda iyo xaquuqaha ka maqan beeshan iyaga ah. waxa kale oo uu daaran yahay in la sii culaysiyo oo shir weyn oo ay isugu yimaadaan gudo iyo dibad beesha iyada ah in la qaban doono bishan Agosto 30keeda ilaa iyo 31keeda hadba intii uu qaadan karo insha Allah. specifically aniga hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo xaquuqaha ka maqan beeshan. waxaa mid ka mid ah waxaa la socotaan teeramkii hore ay ahayd dawladda Soomaaliya 4 sano oo la soo dhaafay 2017kii waxaa jirtay 3 xubnood oo lagu daray gobolada waqooyi oo ay iska lahaayeen gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn taasoo aan wax qayba haba yaraatee laga siinin oo beelaha waqooyiga walaalaha nahay ay si cad oo maaragtay aan gabasho lahayn ay u boobeen. dawladda Soomaaliyeed ee joogta iyo tii hore blay leh maaragtay eedayada tii hore lahayd Xasan Sheekh ka ahaa madaxda iyo Jawaari halkaas oo ay u diideen ama noo diideen inaanu erga aanu maaragtay qoranno kuraastayadii si toos loo qaatay. run ahaantii kuraastii la kordhiyay oo ay yiraahdeen waanu kordhinaynaa cabashadii markay ay dhageysteenna waxa weeyaan waxba kamay qabanin ballanta kamay qaban waxba kamay qabanin. tii baan u taaganahay hadda maanta aanu meel fiican wax marinaynaa. dadku hadda ku wada baraarugsan yihiin ama Soomaali ha noqoto ama ha noqoto maaragtay beesha iyada ah oo xaquuqdu ka maqan tahay ama reer Sool ha noqoto ama reer Sanaag ha noqoto. ummado badan baa dhulka dega oo maaragtay de majority-na ah dadkuna maaragtay de la isma dhaco. haddii maaragtay la isdhacaayo de maba dawladba mayna yeelaneen dawlad ma yeelaneen. cadaalad daraduna qof kasta way ku imanaysaa maalin bay ku imanaysaa. ma ahayn maanta qaarkeen ay fadhiyaan kuraasta ugu sareeya oo ay daawanayaan cadaalad darada la isku sameeyo ama sida la isu maaragtay la isu dhacaayo. waxay u baahan tahay marka in beeshan iyada ahi ay ka tashato aayaheeda ka tashato taasoo runtii tashi weyn oo maaragtay ama ha noqoto dhinaca Soomaaliya ha noqoto ama ha noqoto wax qaybsiga Soomaaliyeed ha noqoto
aanu aad uga tashan doono cid alla ciddii kale oo maaragtay Soomaaliya oo dulmanna waxaanu rabnaa inaanu isgarabsano oo maaragtay aanu miiska soo wada fadhiisano sababtoo ah ummado dhan oo Soomaaliyeed baa wada dulman oo maaragtay waa la isku dulmay kuraasta aqalka sare sidii la rabay oo qaybtu ay ahayd looma qaybsan sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in dib la isugu noqdo oo maaragtay nimanka maamul goboleedada ah iyo madaxda hadda joogta ninba maalin buu joogaa inay markaas maaragtay iyagu si maaragtay mugle ay uga fekeraan hal message-na waxaan u dirayaa guddiga doorashooyinka waxa la idin xil saaray maanta inaad cadaaladda dadka wax ugu qaybisaan ma aha reer baa kuraas haystay kuraasta iyaga lahaa ma laha waa in lagu noqdaa qaybta kuraasta aqalka sare in lagu noqdo weeye oo sidii wax loo kala lahaa loo fiiriyo miisaanka reeraha say u kala degan yihiin gobolada waa deegaan ma aha qabiil ma aha beesha reer waqooyina waxaan u sheegayaa kuraastu ma aha 4.5 kuraasta waa deegaan markaad timaado gobolka Sanaag 85% dad baa degan history baynu leenahay waadna taqaaneen Somaliland cidii ka ahayd maaragtay number 1 ka ahayd oo voice-ka Somaliland ku hadli jirtay ma aha dad hadda soo baxay oo 30 sano soo baxay oo maaragtay ku yimi qoriga dushiisa saarna ma noqonayso waa in la isugu yimaada miiska ninna kale xoolihiisa ma dhici karo iyo xuquuqdiisa ma dhici karo marka miiska inaad timaadaan wada hadalka oo laga wada hadlo xitaa maaragtay labada kursi oo Sanaag ka maqan waa in laga wada hadlaa maaha only mid kaliya maaha in laga wada hadlo weeye soolna sidoo kale in laga wada hadlo weeye kuraasta ku maqan maaragtay Somaliland ku maqan wiilal yar oo halka yimi oo maaragtay ma dhici karaan kuraas dad kale ay leeyihiin ma dhici karaan oo halka marti ku ah ma dhici karaan anagu ma nihin marti ma nihin anagu deegaan baan nahay marti ma nihin deegaan baanu nahay gobolada koonfureed deegaan baanu ku nahay ma nihin dad marti ah marka dad marti inay anaga naboobaan de xaq iyo ma ahan anagu si kastaanu aanu u xisaabtami karnaa السلام عليكم سؤال بقولتين ما دام اي شلay dhaceen wala shaqeerka ay sheegaysid seebad sida maanta way ugu ceshan karaan soo Sanaag xubnahooda markii hore dadku waa la iskhiyaamay khiyaama dhacday waxa loo maleynayay dadku inay xurmo iyo sharaf dii la isku lahaayeen dadka reer waqooyi ay lahaayeen iyo isu hamrashadii inay jirto laakiin markii la arkay waxyaabihii ay sameeyeen waxaan halka ka muuqata inaanay matali karin dadka reer waqooyi dadka meeshan jooga oo kuraasta boobay inaanay matali karin yaani dadku waxay isku lahayn xeer bay leeyihiin dadku yaani waxba la isku xushmeeyaa inaad inda adayg intaad la soo dhaqaaqdo dad kuraastood aad dhacdo oo waliba reer koonfureedna ugu garbeeyaan de xaq ma aha xaq iyaguna waxay leeyihiin maaha marka wiil adeer shalay Hargeysa ka soo cararay anigoo deegaana kuraastayda ma qaadan karo haddaan shalay xishooday oo shalay aan iri haye bal idinka idinku daynay idinku wax inoo qaybiya oo ay inda adeygeen de maanta noqon mayso waa la faraha la isla galaayaa reer waqooyina ma aha hal reer kaliya ma aha waqooyi waxay ka yihiin dadka kuraasta boobaya 429 kilometer bay degan yihiin aniguna waxaan deganahay 300 maxaa la yiraahdo hal beel kaliya waxay degantahay 369 degan marka dadkuna ma aha dad shalay dhashay dalka waa la kala leeyahay xilbaan isdoon waxa maamulaya doorashada waxa maamulaya ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay رئيس الوزراء واحد رئيس الوزراء وتهي أمضى الصومالية سدية طبعاً كقبل أدوق ما تشوجن لكن عبشة يدا وحربنا ورقدي وكلية لاني إن أدور يحدو جدك الدور شوي يكون الجوان كجاران أما جدك خلافات كين لو جد بيو أما محكمة لو جد بيو كراسته absolutely لو ما ترتمي كرا وماركتي لما جين كرا كراسته وين لسوق عليا وكراسته محل يراهدو أي محكمة دكلا حكومتها هدي أي ديدان حير كصومالية ذيك جدبين كراسته تنجم جدبان أنك وين لو جيا محكمة لجيا أما وين محل يرا جدك خلافات كلا صارا